munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo wasiirka hore wasaaraddaasi uguna goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen wasiiru dowlaha wasaaraddaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya agaasimaha guud wasaaraddaasi iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda iyo marti kale ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Yuusuf Isaaq ayaa soo dhaweeyay martida xilku iska meerto waa u mahadcelinaynaa wasiirkeena hore shaqada fiicneed oo la soo qabtay intuu la joogay wasaaradda waa rajaynaynaa wasiirka cusubna meesha hadda joogto meel ka fiican uu sii gaarsiin doono maadaama uu yahay qof khabiir ah xildhibaan Maryan Maxamed Cali oo ka tirsan guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyo senator Maxamed Cusmaan oo ka tirsan aqalka sare ayaa sheegay in xilku yahay meerto goobjoog u nahay in labada xil ay ku kala wareegayaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waana ku mahadsantihiin runtii waa sunnada xil wareejintu waxa nin walba waqti kooban inuu meel joogo ka bacdina la isbedelo waa iska sunnada weeye waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo xil wareejinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo maanta lagu kala wareegayo Saalim Caliyow iyo wasiirkii hore Yuusuf marka waxaanu leenahay insha Allah wasiirkii horena waxaan leenahay wax khayr qabaan kugu ducaynaynaa wasiirka cusubna waxaan leenahay shaqada ilaahay ha kugu fududeeyo wasiirka hore wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Yuusuf Maxamed Aadan ayaa sharaxay waxyaabihii u qabsoomay intii uu joogay wasaaradda waxaan marka hore u mahadnaqaa Allah subhanahu wa ta'ala marka xigtana waxaan u mahadnaqaa madaxda qaranka oo runtii igu aaminay anoo ah qof da'yara oo mas'uuliyadda culus liigu dhiiban waa u mahadnaqaa ugu hore wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Abdi Barre iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka dhammaantood runtii waa u mahadnaqaa waxaan u maleeynaa maxaa annagan inta aan joognay mas'uuliyadda haystay waxaan qabanay inta karaankeena oo nala habooneed waxaan aaminsanahay maxaa inaan wasaaradda muddadii yareed aan joognay inaan ku wadnay si wadar ogola inta karaankeena waa ogtahay meel markaa mas'uuliyad haysid qof kasta ma qancin kartid meel qaar inaad martid waajib waay meel qaarna maxaa hagaajisid marka taasna waxay mas'uuliyadda maxaa ilaahay nagu ma aabeena waxaa ugu waaweyn oo runtii inta aan joogin oo habeen walba aan ilaahay ku daahay kamid inuu ilaahay mas'uuliyad ugu aabayna hadda marka tukanayo sujuud markaas waxaan dhahaa ilaaha wasaaradda ay as if ana wasaaradii wasiirka wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Professor Saalim Caliyow Ibrow ayaa ballan qaaday inuu sii wadi doono hawshii uu waday wasiirkii hore maanta waxa sharaf ah in maanta la wareego wasaaraddan shaqada arrimaha bulshada oo ah wasaarad aad u baaxad weyn muhiimadeeda u leh waa cududda xukuumadda waa dowladnimada aniga sidii markii xil aan qaaday waxaan qalbiga gashtaa inuu xilkaas imtixaan u yahay qof markuu imtixaan galay waa walwalaa waayo ma og inuu gudbaa in kale ma og waa walwalaa dadka ninkii wax yaqaan ku hambalina wuxuu yahay garabka alaa kala isku dhaha dadka hambalinaysa meesha og laakiin farxad waa xil lagu magacaabay laakiin xilkaas ilaahay inaad ku guuleysanaysa in kale howl meesha taala waay marka intay u ducayseen ilaahay xilka igu fuday waa ku mahadsiyiin wasiirku waa ku mahadsiya howl baa soo qabtay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in wasaaradani ay tahay meelaha laga dareemo horumarka dalka ee dhinaca shaqada shaqooyinka la rabo dalkan in laga abuuro horta aan ku bilaabay dalkan Soomaaliya mushkiladda ugu weyn ee dawladda Soomaaliyeed laga rabo inay xallisaa waa arinta shaqo la'aanta ee haysata dadka Soomaaliyeed khaasatan da'yarta Soomaaliyeed that is the most pressing national issue haddaan taa la xallin guulaha amniga laga gaadhayana waxaa ku imanaya gaabis kobaca dhaqaalahana waxaa ku imanaya gaabis ilaalinta taariikhdii ummadda Soomaaliyeed iyo hanashada himilada aynu leenahay qoom ahaan iyo qaran ahaanna dadka la rabo inay wax ka qabtaan waa dhalinyarada iyana haddii aanay shaqayn oo shaqo wanaagsan oo sharfan decent work waxaan la yiraahdo aan loo samayn waxay ku lumi doonaan shaqooyin aan iyana aanay mahadin qarankana u roonaan xukuumadda dan qaran
wasaaraddan ahmiyaddeeda way fahamsantahay wasiir waana sababta khabiirka aqoonta durugsan leh hadda loogu soo magacaabay baynu oran karnaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhowaan isbedel ku sameeyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada una magacaabay Professor Saaran Caliyow Ibrow.